waxaa jira dad badan oo marka ay dhintaan ruuxdooda la joojiyey oo aan janno iyo naar midna la gelinayn. wuxuu yidhi nabiga sallallahu calayhi wasallam, nafsul mu'mini mucallaqatun bidaynihi xataa yuqdaa canhu. hore waxaan ka codsanaya inaad muuqaalkan like saartaan, sii sheergareydaan si uu u gaaro dhammaan asxaabta kale oo uga faa'iidaystaan. qofka mu'minka ah ruuxdiisu deyntiisa ayay ku xiran tahay ilaa deyntii laga gudo oo laga bixiyo. culimmadu waxay dhaheen dadka shahiiday oo shuhadada ah iyo dadka saalixiinta ah oo mu'miniinta ka mid ah marka ay geeriyoodaan ruuxdooda albaabada jannada ayaa lagu haynayaa oo jannadii kuma nicmaysanayaan oo la geli maayo ilaa deyntii lagu lahaa laga gudo. waxaan kugula talinayaa haddii deyn lagugu leeyahay ama aad deymaysan tahay in aad deyntaas ogeysiido dadka adiga kuugu dhow si haddii aad geeriyooto ay kaaga sii baxshaan. sidoo kalena waa inaad ku dadaashaa inaad adigu deyn walba oo lagugu leeyahay iska bixiso. wuxuu yidhi nabiga sallallahu calayhi wasallam, man akhada amwaala annaasi yuriidu addaa'ahaa addallaahu canhu. qofka dadka xoolahooda qaada isagoo raba inuu iska gudo oo iska bixiyo, ilaahay ayaaba ka guda. ilaahay maba ku cuslaynayo oo haddii uu awal horay u niyeystay inuu iska bixiyo, ilaahay ayaa ka fududaynaya. sidoo kale wuxuu yidhi nabiga sallallahu calayhi wasallam, waman akhada yuriidu itlaafahaa atlafa lahu. qofka dadka xoolahooda u qaada inuu cuno oo ku tago, ilaahayna qofkaas waa uu ka aarayaa oo amaalmarintiisa asaga ayaa u haya. muuqaalkan like saar oo sii sheergaray page-kan follow.